Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan gobolka Daawa, Somali State. Warbixintuna waa sida tan. Dhageysi wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idinka warrami doonaa doorashada guud ay ka dhacday gobolka Daawa. doorashadaas qaabkay u dhacday iyo siday ku dhamaatay inaan faahfaahin yar oo aan ka bixiyo aan doonaya. faahfaahintaas oo ah horta doorasho oo meeshan oo gobolka Daawa maanta ka dhacday oo xor iyo xalaal ah ma laha. maadaama xor iyo xalaal oo doorashada ay u dhacin waxyaalaha sababay inay u dhacin doorashadaas xor iyo xalaal waxaa ka mid ah doorashadii horta shacabkii oo ka qayb qaadan lahaayeen hal qof oo shacab oo ka qayb qaatay ma laha. dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ah maamulka qabalaha, guddiyaasha oo qatanaha iyo madax fiseedada iyo wiilishii murjaboordeeda looga talagalay inay kaarkii wixii ay maareeyaan intaaba ka qayb qaadatay. marka halkaa markaad tagtid oo inaad ka doorashadii aad ka qayb qaadatid halkaa u tagtid waxaa lagu leeyahay 200 oo kuraan ku dhiibayna 200 ku rid anagna 200 marka kaali saaciday bay leeyihiin oo in ayna la qabatin oo ninkiiba 200 inuu ku rido ba intaaba war noocaas bay wadaan. marka kurihii shacabkii inay soo baxaan oo ka qayb qaataan la rabay cid ku soo baxday malaha. qaybtii yareed oo halkaa tagtina waa in yar oo la qasbay oo maamulka ka mid ah oo xilkooda ay ku ilaashanayeen halkaa tagay oo saaba ku rideen. markan waxyaalo kale oo haddana meesha ka dhacay murjaboordeedii lacagtii ay ugu soo talagashay in lagu qarash gareeyo ridida kuraha doorashadii inay ku dhacdo oo qarashkii loogu talagalay oo murjaboorde ay soo dhiibtay kuwa maamulkii oo mas'uuliintii oo meesha ka taagnaa oo musharaxiinta ahaa kuwii baa isku cunay. markay imaadeen Mandela toddobaadkii aan soo dhaafnay oo gobolka Daawa uu yimid markuu imaaday wixii qabala ahaa oo gobolka dhan la isugu yeeray ala qabale kasto waxaa la saaray 10,000 oo bir oo riyaalka Itoobiya ah. marka 10,000 waxay ugu talagaleen in lagu kharash gareeyo doorashada xilliga ay dhacayso in lagu qarash gareeyo oo maanta ah. marka waxay doorashadii oo xor iyo xalaal baa la sheegaya ma arkin anaga wax xor iyo xalaal ku dhacay. marka qaabkaas ay waxa u dhaceen in kuro oo hal qof oo codeynayo laba qof 200 iyo wax la jiraan oo kuro hal qof oo ku codeynayo weliga anaga adduunyahana kama arkin, afrikana kama jirto, adduunyahana kama jirto, meel ay ka jirto aan anagu naqaano malaha weliga anaga ma arkin. marka kilamistii kililkii shanaad ceebta u timaaday qaabka doorashada ay u galeen qaab jirmaaha qaab musuq oo ku xeeladaysan bay ku sameeyeen. marka waxaan maareynay haddana oo meesha kurihii oo qabalaha lagu riday goobta codeynta waxaa maareey ka ah madax fiseedka RRC hadda gobolka Daawa ahaan xarunta gobolka hadda maanta waxaa maareynay mida oo madax fiseedka RRC ka ah iyo gudoomiye ku-xigeenkii oo gabraha ahaa oo hebel buudija la dhihi jiray intaan ba maanta maareynayeen qaab qaldan waan lagu maareynay ilaa saakas 12kii ilaa saacada hadda la joogo 12kii oo galabnimo ilaa saacada hadda la joogo waxaa la sameynayaa 10 qof halkaa intay fadhiisteen oo maamulka qabalaha ay ku jiraan oo guddi qatana baa lahaa guddiga oo qatana hooseedka uu ku jiro maamulka madax fiseedayaasha ay ka mid yihiin gudoomiyaha qanad iyo qabalayaasha ay ka mid yihiin intiiba intay isku garabsadeen ninba 200 300 nin 2,000 bay ay gelinayeen polling stationkii marka shaqada saal bay u socotaa. guji
gujiina waxay ka dhacday meel qabalaha oo gobolka daawa ka mid ah oo guji la yiraahdo oo ciidan gabraha ay degan yihiin halkiina waxaa ka dhacay in polling stationkii kartoomi oo boxkii bullet boxkii oo loogu tirigalay in lagu codeeyo oo qoladii oromada inay si xoog ah intay ku qaateen oo doorashadii ay ka suurtagelin waxaan kaloon ka warbixinaynaa in gobolka daawa xarunta gobolka xafiisyaasha dhammaan waxaan ka ahayn boolista iyo xeer ilaalinta iyo kuwa arrimaha amniga waxa aan ka ahayn hay'adda amniga waxa aan ka ahayn intii kale ka soo hadhay gudoomiyaha gobolka iyo wixii shaqaalihiisa xafiiskooda aan la fureynin 6 bilood ka horba xafiiskii la xiray ciddii u soo baahato in cabashi iyo shaqo ay ka la wadaagto gobolka marka timaadida xarunta gobolka xafiiska gudoomiyaha gobolka marka tagtid xafiisku wuu xiran yahay wax kasta oo meesha u baahatid waxa lagu leeyahay fariin nooga dhaaf waardiyaha oo ilinka joogo inaad nooga dhaaftiin wixii fariin aad noo wadid marka gudoomiyaha gobolka telefoon aad u dirtid oo la hadashid wuxuu ku leeyahay wixii fariin aad haysid waardiyaha halka joogi ugu dhaaf waraaq hadaad official hadaad keentid waxa la leeyahay waardiyaha ku dhaaf dan kale hadaad ka soo gasho waardiyaha u tag waardiyaha fariinta nooga dhaaf bal leeyahay gobolkii saabu u dhibay oo shaqaalihii gobolka loogu tirigalay inay bulshada ay xafiis waxa loo yaqaan in bulshada ay xafiisaha ka adeegato danaha shacabka iyo wax kasta lagu furiyo baa la doonayaa wixii dhan lama hayo cid allaale ciddii hadda oo meesha ay u xil saarneed gudoomiyaha gobolka iyo wixii la jireenkiisa ahaa dhammaan inay gobolkii quful intay saareen ay iskaga tageen marka kuwa kale oo hadda oo mas'uuliyiinta hadda aan u codeynayno oo aan dooranayno iyagiina markay imaadeen waxay hal habeen bariyeen oo meeshan qodoba la yiraahdo oo guriyashan oo masaakiinta wixii loo dhisay halka bay maalin galab intay soo galeen ilaa habeenkii 6 saac halkaas ay ku qayileen qayilkii markay dhameysteen aroortii waa iska yaaceen degmada mooyal bay tageen ilaa hadda waxay ku sugan yihiin degmada mooyale waxa ilaa hadda xarunta gobolka imaanay oo gobolkan xafiisaha ma waxay xiran yihiin wixii oo gobolkii waa la dumiyay waxa meesha ka jiro magaca aan ahayn oo gobol aan malaha marka nimanka mas'uuliyiinta waxa la rabaa inay ka noqdaan mas'uul waxa laga rabaa in a good example for the rest dadka kale inay ku fiirsadaan la rabaa marka mas'uuliin oo lagu fiirsanay halka lagu ma arkin gobol magacaan haysana gobol oo dayactiran oo tayeysan oo mas'uuliin oo lagu dayanayo ay haystaan ma arkin mas'uul sidiisa waa muraayaddan waxa isku eego shacabkiisa isku eego muraayadda shacabka haday isku eegaan oo inaad si fiican u labisantahay hadaad aragtid marka dawlad baa ka jirta meesha la dhihi kara waxaan oo hadda oo meesha maanta ka socday oo doorasho leeyahay ma arkin doorasho oo hal qof intuu meesha iska fadhiisto oo iskaga aruursanayo wixii xalay saa looga bilaabay ilaa maantadan hal qof 5 qof 6 qof intay meesha buugid kartoonkii ay ku xariireen ay isku guranayeen marka wararkaas baan ku haynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay
kana mahuraanayo madaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maaraynta dadguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu